السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن داوديال مeel kastoo aad joogtaan ba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idinku qabanayno magaalada Laascaanood daawadayaal sidaad hore ula socoteen amaan idin soo gudbinay waxaan hore uga hadalnay ururka amaba bahda loo yaqaan deegaan cagaarshe oo ah dhalinyaro aqoon-yahano ah oo iskood suxil qaamay isla markaana hirgeliyay inay deegaanka cagaariyaan dhul badan oo kamid ah deegaankan gobolka Sool iyo gobolada kale iyo degmooyinka ag yimaada amaba hoos yimaada waxay gacan weyn ka geysteen sidii ay u suurtagelin lahaayeen deegaanka iyo goobo badan oo muhiim ah xarumo aad loogu baahnaa inay cagaariyaan warbixinteedii hore ayaa waxa ku jirtay tiradii iyo dhirtii ay beereen iyo halkii wax u marayeen hadda waxa dhinacyada fadhiya asaasayaashii ururkaasi deegaan cagaarshe uu yahay urur aad u ballaaran oo dhalinyaro badan ay ka qayb qaadataan haddaba maxamed Saleebaan iyo Saleebaan Daahir ayaan wax ka weydiin doonaa bal himilooyinkoodii u hirgalay wareysigii kadib waxay noo mareysay iyagoo dhalinyaradaasi iskoo isu xilqaamay dhir aad u tiro badan ay sheegeen oo anfac u ah midhageedo ama midhaha muhiimka ah ee la cuno xooluhu ay isticmaalaan ama dadku cunaan ha noqdaan bal waxa uga hirgalay iyo deegaamadii kala duwan ay tageen iyo halka wax marayaan marka hore maxamed Saleebaan baan ku soo dhaweynayaa maxamed ku soo dhaw warbaahinta bal waxa naga warantaa hawlba inoo socotay iskiin baad suxil qaanteen inaad dhulka cagaarisaan dhul badan oo muhiim ah maanta waa cagaaran yahay walillaahi alxamdi hawl wanaagsan baad qabateen halka markaad ilooga ambaqaado halkee wax u marayaan deegaan cagaarsho ahaan alaaba marka ugu horeysa mahad iska leh mahad Allah ka bacdi ilaahay nimcooyinkiisa noogu deeqay aad buu mahadsan yahay wariye Gadari oo wareysigan nagu martigeliyay haddaanu ka hadalno su'aashii uu weydiiyay ahayd xagee wax idin marayaan marka hore deegaan cagaarshe haddaan xasuusiyo bulshada waa urur ama organization ka shaqeeya environmentalka iyo beeraha wuxuu ka shaqeeyaa goboladan Sool iyo Sanaag iyo Cayn Buhoodle wuxuu ururkani awoodda saaray maadaama ay dunidu maanta deegaanka si hoos u sii dhacaya iyo xaalufka iyo dhibaatooyinka cimilada isbedelaysa maadaama ay dunidu maanta waxa ugu badan laga hadalhayo ay tahay inaanu awoodda gelino sidii deegaanka aan u hagaajin lahayn oo aanu dhir ugu beeri lahayn muddo hadeer waan ka soo shaqeynay hawshan Allah xamdigi wax badanna way noo hirgaleen wax badanna waanu hiigsanaynaa hawshan dhir beerista ama in dhir la beero iyo in deegaanka la dhowro iyo ka hortaga xaalufka wax kasto xaaluf ku keenaya ama baabiinaya deegaanka waa shaqo inta badan aanu dusha u ridanay markii aanu bilaabanay organization-kan wareysigan waxa kaga hadli doonaa waxyaabaha hadda sida maaragtay muhiimka noogu hirgalay iyo waxyaabaha aan doonaynay inaan hiigsano dadku in badan baan aqoon saamaynta ay leedahay biyaada ku leedahay xaalufka dhirta iyo deegaanka isbedelaya xilligan dunidu waxay u dabaaldegaysaa maalmo dhawaad aynu soo dhaafnay iyadoo laga mudaharaadayo laga qeylinayo isbedelka cimilada ku yimi waynu haynaa oo kuleylkii waynu aragnay roobkan waynu aragnaa laxaadka badan ee meelaha qaarkood imka deegaanada ka daaya marka hore dadka waxa u sharaxdaa biyaada si xumaanaysa saamaynta ay leedahay iyo waxa keena dhibaatada keeni karta nabadguur hadduu dhulku dhaco bal warbixin kooban ka sii marka hore bulshada dhibaatooyinka deegaanka haysta ee maanta dunida oo dhan ka qaylinayso oo laga wada hadlayo waxa weeye cimiladan si xumaanaysa iyo dadkii ku tiirsanaa noloshoodu awal hore daaqa iyo xoolo dhaqatada iyo beeraha oo iyaguna cabasho weyn qaba maadaama deegaankii uu si xumaanayo waxaadna moodaa in dunidu ay ku kala duwan tahay wadamada qaybna ay ka shaqeynayaan sidii deegaanka ay u baabi'in lahaayeen ganacsigoodu uu ku xidhan yahay warshadahan qiiqa sii deynaya iyagu maadaama ganacsigoodu ku xidhan yahay warshadahanna deegaankan iyo carbonkan ay hawada ku sii deynayaan iyo dhirtan sii gubanaysa iyo waxan dantooda maaha iyo ugaadha sii dabargo'aysa laakiin waxa arintan kale ee wadamadan hadda soo koraya ama wadamadan bariga dhexe iyo wadamadan Afrikaanka noloshoodu inta badan ay ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolo dhaqatada waxaad moodaa in
iyagu dhibka ugu weyn ay qabaan maadaama siyaasadii lagu kala duwan yahay oo ilaa hadda xal loo laayahay wadamada qaarna aysan deegaankii baabi'inayaan wadamada qaybna deegaankii ay isku dayaan inay dhowraan marka dhibaatooyinka horta xaaluf ee deegaanka ka jiraayay waxyaabaha uu sababi karo waxa kamida waxa loo yaqaano desertification inuu dhaco nabaad guur yimaadaba oo waayo hadda waxa dhacaya waxa weeye land degradation oo dhulkiiba hoos u sii dhacaya xaaluf baa sii dhacaya dhulkiiba isbedelaya waxa sameeyay erosion oo nabaad guur baa dhacaya oo xoolihiiba daaqi waayaya oo boholaha inta sii go'aya waxyaabahan dhulkan isbedelayay ama ciidan sii bedelaysa iyo qoraxdan sii xumaanaysa waxay sababaysaa inuu meeshu ay noqoto marka dambe saxare taasina waa dhibaatooyinka laga cabsi qabo maanta dunida in dhul badan oo saxaraay uu dunida maanta ku soo kordho waad arkaysay kaymaha maanta dunida hadii laga hadlo kaymahan sii gubanaya kaymaha hadda Brazil ku yaalo kale waa kaymaha la yiraahdo kaymaha ugu waaweyn dunida oo oxygen-ta qayb kamida 20% oxygen-ta dunida iyaga waa laga helaaba dadka qaybsan sahamiintu ay sheegaan markii ay qiyaas ku sameeyeen marka inagu dhibaatada harta inagu keenayso deegaankan si xaalufmaya waxa weeye waa cimilada isbedesha xoolaha iyo ugaadha oo waxay cunaan waaya dalagii iyo waxyaabihii aanu beerinay oo meesha ka baxa dadkii oo noqda dad maartay dhaqaale ahaan hooseeya waayo dadku wuxuu dhaqaalahoodu sareeyaa markuu deegaanku yahay mid awood badan oo wax badan u qabanaya ama soo saaraya aad iyo aad baad maxamed u mahadsan tahay halkan dhinacayga waxa fadhiya Salebaan Daahir baa fadhiya Salebaan waxaan ognahay inaad qayb weyn ka qaadato hirgelinta ururkiina deegaan cagaarshe dhul badan aad dhir badan geyseen geedo badan aad abuurteen bal waxaad sharax kooban naga siisaa maanta iyo inta aydan hawsha bilaaban isbedelka magaalada ka muuqda iyo cadadka reed ee aad beerteen noocyada geedaha aad beerteen bal iyada warbixin naga sii maaruuxin ilaahay baa maaskala galabta kulankeenan wuxuu daaran yahay bal warbixin inuu ka bixino bahda deegaan cagaarsho iyo muddooyinkii u dambeeyay waxa uu qarsoomay halkan waxaan kaloo mahad celinayaa wariyaha Gadari oo ka socda TV-ga qaranka Somaliland runtina hadda ka hor wareysiyo badan uu ka qaaday gudoomiyaha ururka Maxamed Salebaan runtii wax markaas na garab taagan yahay haddii aan ku noqdo su'aashii hore oo ahayd bal maxaa difference u dhaxeeya waagad bilowd ilaa maanta runtii wax badan maanta la harsanayo dhir badan oo la harsanayo 80-70 magaalada waan ku soo arkay waxa kamid ah kuwa hadda aan meeshan joogno maalinta laga soo qaadayay sanad ka hor baahed maanta wata aanu harsanay sawirkeedan ku gelino gobolku iminka waxaan ka soo dareemanaa isbedel aad iyo aad runtii maartay u muuqanaya meel ka soo tagnana dhirtii waxa weeyaan way kortooda waa la harsanayaa ilaahay baa mahadaas kale anaguna markaas waxaan jecelnahay si laba jibaarno sanadka hore meeshan taagnay haddana ku geed beerno in 200 oo geed beerno insha Allah waxaan rajaynaynaa gobolka inuu noqdo mid cagaara waxaan xooga saarnaa sida goobuhu kala miibsan yihiin tusaalahan dhakhtarka kale waa goobta ugu muhiimsan badhihi karaya gobolka Sool dhakhtarku hadda hawshiisa way socotaa hadda ka hor waxaan u qoondeynay 150 geed inuu gelino oo goobta kalena goob cagaara takala soo raada waxa way laamiga lambar 1ka maadaama Tom Balenki meeshii uu maray oo la hagaajiyay gobolkii inaanu qaybtida deegaan cagaarshahan ka qaadano markaas waxaan u gaarsiinaa degmooyinka tuulooyinka ku xeeran gobolka Sool runtii markaas waxaan u taaganahay inaanu gaarsiino goobaha baahiya dhirta u qaba waayo meel kasto geedlaan ka jirto waa meel maartan nolosha ku yartahay runtii kaliya anagu deegaanka ma shaqeyn waxaan ka shaqeynaa dhanka beeraha iyo wacyigelinta iyo san maartan faa'iidin lahayn markaas waxaan jecelnahay inaanu deegaanka iyo bulshada horumarino logsoon yahay debiyaadna baynu ka hadlaynaa iyo inaynu dhul nabad guurkii aynu ilaalino hawshana waxaad moodaa inay u badan tahay magaalooyinka inaad dhareysaan ma jiraan meelo kayma ah dhul kayma ah oo aad tagteen oo sidan loo xaalafayo waad aragtaa dhuxushi baa la shidayaa dadkii geedihii bay jarayaan geedkii la jaraya geed lagu bedelayaa ma jiro dadkuna aqoon ku filan uma laha dhirtan ay jarayaan iyo saamaynta ay keeni karto dadku hadda ma u baraarugsan yihiin khataraha ka imaan kara mise jirtaa barnaamij aad dhankiina ka deegaan cagaarshahan marba hadaatiin ururka kaliya ee iyagu xilligan ka shaqeeyay deegaamadan suna xil qaamis iska wuxuu qabsaa inay dhulka ka shaqeeyaan bi'adiisa inaad
gacan ka geysateen dhulka baaba'ay ama dhulka hore ee dhirta caanka ugu ahaa ee dee isbeddelka bii'adda keenay ma jirta hawl baraarujin ah inaad dadka arinta xog aad ka siisaan ama aad ku dhaqaaqdaan ama taladeeda aad ku jirtaan gadari sidaad sheegtaba barnaamijka imika noo qorshaysan sanadkan wuxuu yahay si aan u qaban lahayn training ama seminars ku saabsan deegaanka iyo sidii loo joojin lahaa dhirtan la jarayo dhuxusha iyo loo isticmaalayo waxyaalaha aan deegaanka manfaca u lahayn sidaan ognahayba imika deegaanku wuxuu ku tirsan yahay ama lagu tirsanaa waa dhulka kaymaha ah dhulka kaymahana imika waxaa loo isticmaalaya dhuxul dhirtii ugu caaqibada lahaydna wadanka uu kasii baxaya sida galoolkii qurucii higladii dhirtii waaweyneyd ee dhuxush maaragtay dee awoodda lahayd markastoo geel la jiro meesha waxaa ka baxaya intaasoo nooloo ku noolaa intaasoo waxa weeyaan cidoo harsan jiray xooliba harsan jiray marka waxaan jecelnahay inaanu sameyno meelaha tusaale ahaan goobaha dhulka maaragtay bannaan oo kale inaanu ku beerno dhil maaragtay dad xoolinaysa cunahan deegaankana soo celinayo oo maaragtay dee cara guurkii iyo waxyaalihiina ay ka hortegi lahaa marka halkaa waxaan jecelnahay sanadka inaan qabano seminaarka ugu weyn ee laga qayb qaadanayo joojinta jarista dhirta baan u soo noqonayaa maxamed gudoomiye salaamaan wuxuu noo sheegay inaad hawsha ku dhaqaaqi doontaan dadkuna aad uguma baraarugsana kuwa magaalooyinkaaba laga yaabaa inay xoogaa inay yara dareensan yihiin muhiimadda ay dhirtu leedahay ma noo sharaxi kartaa dhirta deegaamadani lahayd ee laga yaabo nabadguurku inuu ku dhaco kuwa aad hadda abuurteen dhirta aad idinku aad midhaheeda aad dib ugu celiseen dhulka in geedkaasi aanu xaalufin bal sharax kooban naga sii dhirtan dhulkani lahaa iyo noocyada geedaha sii baxaya iyo muhiimadda ay kala leeyihiin waa mahadsantahay gadari horta haddii aan ka horeeyo muhiimadda dhirta sii dabargo'aysa horta dhirtaan cabsida weyn aanu ka qabno oo deegaankani uu leeyahay oo laga yaabo inay meesha ka baxaan waxaa ka mid ah geedkan dhidinka xabagta soo saara malmalka loo yaqaano oo inta badan aad arkaysay hadda magaalada Laascaanood aanu joogno wuxuu ka bixi jiray magaalada dhexdeedu soo dhidinku ka bixi jiray oo xaafadaha koonayaasha dhidinku waa haystay hadda waxaad moodaa inuu sii nabaad guurayo oo ilaa buurihii maanta buuraha hadda xaggan aadid koonfurta magaalada Laascaanood buurahaas koonfurta ku yaalaad ugu tagaysaa oo ilaa intaasoo dhan oo bannaanka ah ee buuraha iyo magaalada u dhaxeeya dhidin wuu haysan jiray laakiin uu ka baabaa xakan kale magaalada waxaad moodaa meeshan dhidinka loo yaqaan ee galbeedka magaalada ku taala in uu geedkani hadda ka sii baxayo oo marba waa meesha ugu badan yahay dhidinka magaalada uu ku yaalo waxaad moodaa in uu marba sii fogaanayo oo marba magaalada ka sii durkayo waxyaabaha sababayana waxaa ka mid ah waa jarista lagu hayo geedkan jaristii baa waxay saamaxday inuu geedkan yaraado waayo bulshada jaraysa waxaa loo jaranayaa ood iyo waxyaabo kale oo aan muhiim ahayn oo laga maarmi karo ayaa loo jarayaa marka geedkan horena barnaamij horena waan uga sameynay geedkan faa'iidadiisa warbixin baan ka diyaarinay geedkan muhiimadda uu leeyahay laakiin hadda waxaad moodaa inaysan dadku weli ku wacyigashaneyn oo ay intaa ay sii jarayaan geedkan waxaana hadda ku rajo weynahay maadaama geedkani uu ku baxo habka vegetative propagation la yidhaahdo oo uusan artseed ahaan uusan u tarmin in aanu laamihiisa sii tarmino oo intaanu maaragtay xiliyadan kale inta laamaha la jaro ayaa laamihiisa sii fidaya oo markaas deegaanka sii qabsanaya marka qorshaa nooga yaala inaanu budget balaan u diyaarino kabacdina aanu maaragtay sida aanu ku sii sameeyno dhir fara badan oo sii baxaysa sii dabargo'ayso magaalada ka sii nabaad guuraysa ayaa jirta oo ay ka mid yihiin dhirtan hadda qurac kale quracu wax la daryeelo ma meel buu ka taagan yahay inta qofkii u baahan uu iska jaraya ma oga quracani inta sano uu soo baxayay dhir kale oo laga sameysanayaa jiro marka ayada la tago la iska soo guranaya haduu hadi noqdo haduu xagar noqdo dhir maaragtay magaaladan ka baxi jirtay dharkaynkii baa kamid oo la isku daaweyn jiray isaga la jarayo waa dhir adigu la oran karo Laascaanood markii hore si fiican bay uga bixi jireen laakiin hadda sidii loo jarayay
ayaa maaragtay ay dhirtani ku yaraatay xitaa boocda oo hadda geedkan boocda loo yaqaanay magaaladeena meel kasta ay ka bixi jiray hadda arki maysid waxaana lagu sheegay daawo marka laga hadlo boocdo kale xanuunay daawo ka tahay oo dadku hadda way isticmaalaan magaalada joogaay marka inaanu awoodda waxaanu saaraynaa in dhirtii maaragtay deegaanku lahaan jiray inaanu maaragtay dhirtan aanu beerayno inaanu ku darno dhirtii maaragtay deegaankan lahaan jiray inaanu dib maaragtay u beerno aad baad u mahadsan tahay tirada geedka deegaan cagaarshahaan aad deegaamada Laascaanood iyo soonaha dhow waraysigii kan ka horeeyay waxaan u maleeyaa inaad kun iyo xoogaa ay inoo ahayd inoo taagnayd maxaa inoo kala dambeeyay xog naga siin kartaa hawlgalkiina halkeebuu u badnaa intee geed ayaad dib u beerteen oo aad u qaybiseen ama aad beerteen oo aad dib u abuurteen waad mahadsan tahay haddaan ku sheego waxqabadyadii ugu dambeeyay sanadkan aanu fulinay horta sanadkan wajiyo badan baanu samaynay oo awl hore iskoobkayagu wuxuu ku ekaa aanu markaanu shaqaynayno inaan dhirta beerno laakiin markan sidii yoolkayaga hore ahaa markaanu ururka asaasanay waxaanu samaynay barnaamijyo cusub oo ay ka mid yihiin inaanu tababar qabanno ku saabsan culumta deegaanka iyo sida loo ilaalin karo waxaan kaloo samaynay inaan dhirtii habab cusub oo maaragtay dadku uga faa'iideysanayaan wajiyo cusub aan u samaynay tiraba dhirta hadda aanu beernay way badan yihiin waxayna ku dhow yihiin sanadkan ilaa 1,000 geed waanu bixinay oo tuulooyinka iyo degmooyinka aanu gaarsiinay degmooyinka aanu markan dhirta gaarsiinay haddii aan ku carabaabo Kalabaydh baa ka mid ah oo degmo 30 kilomitir qiyaasta u jirta magaalada Laascaanood waxaanu gaarsiinay meesha loo yaqaan Orbogays oo ah iyaduna magaalo hoos tagta Sanaag saan filayo waxaanu gaarsiinay meelo ay ka mid yihiin tuulooyinkan Gambare iyo magaalada Tukaraq oo hadda qorsheeda aanu ku jirno oo maalmahan soo socdaan doonayna inaan dhir iyadana gaarsiino oo hareeraha maaragtay meelaha muhiimka waa magaalada wadooyinka ah lagu beerayo sanadkan waxaan kaloo ku soo darnay inaan tababaradaas aan markii hore carabaabay aanu maaragtay qabanay magaalada Buhoodle oo ah magaalo inta badan xagga dhiraynta ku fiican laakiin dhibaatooyin badan oo haddana deegaan ay haystaan oo ay ka mid yihiin magaalooyinka sii badanaya sida hadda tuulooyinka cusub ee samaysmaya ay ku badan yihiin oo kale waxyaabaha xagaafyada iyo baabuurtu inta badan waxyaabaha deegaanka dila waxaa ka mid ah baabuurtan ku sii badanaysa ee wadooyinka cusub sameynaya iyo magaalooyinka sii kordhaya marka Buhoodle kale waxaan ku qabanay seminar ama training khuseeya dhibaatooyinka deegaan iyo sida looga hortagi karo ama loo daba qaban karo marka jaamacadda East Africa ayaanu training-ka ku bixinay waxaana ka faa'iideysanayay dhammaan ururada magaalada iyo ardayda iyo dhammaan bulshada degan magaaladaas qaybaheeda kala duwan ayaanu ku soo qaadanay inay ka faa'iideystaan tababarkaas salaam baan u soo noqonayaa salaaban magaalada waxaan arkayaa in badan oo ka mid ah dhir waaweyn oo noocyadoodu aan meeshan wadanka ka bixi jirin ayaa hadda ka muuqda guryaha iyo waxaan kaloo aan arkayay maalmo dhaweyd arday takhriijkiisa oo jaamacadaha ka baxaysa ku ugu dambeeyay qalin jabinayay oo qaarkood si iska ayaa dhirta u beeriyay idina aad u qaybinayseen maxaad noogu warrami kartaa bal tilmaameed ahaan dhalinyarada aqoon-yahaminta ee jaamacadaha ka baxaya sida kuwa qalin jabiyay dhirta beeraya amaba jaamacadaha magaalada ku yaala xiriir ma leedihiin ilaalinta bii'adda iyo deegaan cagaarshahaan saas oo kale in had iyo goor la isugu xilqaamo in bii'adda la ilaaliyo gadar haddaan su'aasha ka jawaabo ayaamii u dambeeyay waxaan wadnay olole ah qof iyo geed ama barnaamij qof walba inuu iskii wax u beero maalintuu qalin jabinayo maalintuu guursanayo maalintuu qof u dhasho maalintuu mehersanayo marka jaamacadda ku guuleysanay waxaa ugu dambeysay jaamacadda Nugaal ardayga qalin jabiye community development
oo jaamacadda lafteeda dhirtii ku beeray kana faa'iideeyay macnihii inay hadhow geedka dib loo anfacsado waxaa jira jaamacadda Golis oo kale in barnaamij la qabato dadka bandhiga aad iyo aad ugu mahadnaqanaa Sal Software engineer Maxamed Jaac isna qayb weyn naga qabtay hadda koro mar bandhig iyadoo qabanay jaamacadda imika deegaan cagaarshaan aad iyo aad bay isku xidhan yihiin wax kasta oo maartay waxay dheen deegaan ku saabsan oo qayb libax baan ku qaadanaa imika qof walba uu soo jeeda sidoo deegaankiisa u badbaadin lahaa waayo maanta waxa kaliya lagu faanay waa sida deegaanka loo soo noolaan lahaa adduunka oo ognahay maanta inta qof ee dhir beeraya inay tartan iyo record lagu jiro marka imika dhirtu way kala duwan yihiin waxna waa wax dalka u dhashay waxna wax la keeno oo siirkooda meel kale laga soo caarido marka way jiraan dhir badan oo gobolka ku cusub oo amba indhahaygan saaray runtii qaar badan aan garan waayay oo siirkooda dibadaha iyo wadamada kale ee maartay inaga baxsan laga keenay waxna wax inaga ku weyn maartay dhulkeena u dhashay marka anaga waxaan leenahay nursery meel dhirtaan ku kobcino ama ku xanaanayno waxaanu ka faa'iideysanaa dhirteena inaan siirkii dib u soo marka isticmaalno inaan dib u beerno tusaalaha kale maalintii marka qadinaysi limbad ku qadinaysaa saytuun bad ku qadinaysaa cambad ku qadinaysaa inayaasaad guranaysaa ciid baad soo qaadanaysaa caagir baad soo qaadaysaa wad gelinaysaa saas ku baxayaan marka isku dhimaysi qof kale intuu 100 geed beero ay si free u bixin karaya kadibna deegaankii waa hadhow ay anfacayaan marka qofna inuu qof ku haleyn deegaanka in waxa weeyaan saa loo daba socdo inaanu ilaalino markaas aanu taaganahay anagu waxaan jecelnahay markaas in deegaanka aan lamaro ka aan berigii hore marka ay xaafaduhu ay soo iibsadaan khudaar ama dhir ama ay isticmaalaan hadiyo goor waxa la arki jiray in iyaha marka la soo daadiyo marka roobku doo guriyaha hortooda xabxab haday tahay qarax haday tahay kamsala haday tahay tamaandha haday waxba ka soo bixi jiray imika waxaad moodaa waxaas inaanay jirinba oo arki maysid geed meel ka soo baxayo reerku waxay soo daadinayeen sidii lagu yaqaaneen berigii hore marka banaanada lagu soo daadayo iniyahaas roobku dhibicda roobka hesho ay iska bixi jireen maxaa sababay maxaa isbedelo yimi maynihii baa inihii ahayn ma waxaan cunaynaa wax original ahayn maciideeni baa dhalan gadis ku dhacay bal warbixin yar oo kooban laga sii arinta mise daba gasheen oo ma baadheen niyo way jirtaa dhibaatooyinka maartay markasta kulay wixii sidoo hore ahaan maayeen wax walba isbedel baa adduunka lagu wadaa marka jirmiresh waxa la jira waayada hore saad sheegtay siirka markii la isticmaalo biyaha markii xalka la daadiyo waxa soo bixin intaas oo maartay inayoodo ama dhiro kala duwan laakiin maanta lama arkay taasna waxa u sababa in siirkii macnaheedu la duray ama maartay waxyaalaha chemical laga dhigay kadibna loogu talagalay hal mar in la beero dibna ay soo bixin ma aha kaliya xaafadaha iyo ereyadan aanu fiirino maaha laakiin beerahana waa haysta beeraleyda oo waayo beeraleyda sanadii u dambeeyay gobolka Sool yaanyadu way ku yarayd markii loo eego dhirta kale taana waxa sababay in iyaha ay markii soo iibsanayaan waa in markii iyaha aad maartay meel yar nursery oo tijaabo aad sameysaa markaad ku beertay ka dhow haday deen in iyaha soo baxaana waxa weeyaan aad saa ku beeratay haday soo bixi waayaana in iyaha soo in markii hore la soo durada waxa maartay isticmaal mar labaad gelahan marka taa waxa keenay in iyaha la soo iibsanayo iyo isticmaal la'aan inaga haysta dhanka siirka marka waxaan ku baraarujinaa dadka inay markii hore akhriyaan tijaabiyaan waxna dum ma facleen ay beerta dadka la isaga ka tanaasulaan aad iyo aad baad u mahadsantahay Salebaan Maxamed baan u soo noqonayaa Maxamed horta geedka waxa la yiraahdaa qofka geed beeray waa qofna la beeray geedku hawl badan yahay waraabin buu u baahan yahay biyo u baahan yahay ilaalin buu u baahan yahay dad badan baan iyagu aan u arag qiimahaas inuu geedku leeyahay qaar baa iska jaraya hadda aragto dhibaatada idinka haysata bulshadan aad geedaha u beertan ama dadka magaalada dhirta meelaha ku beereen dhibaatooyinka had iyo goor dadku aan ku baraarugsanayn bal iyada maxaad warbixin naga siin kartaa waa su'aal muhiim ah horta noole walba wuxuu u baahan yahay saynu ognahay xeerarka noolayaasha marka laga hadlayo wuxuu ku noolaan lahaa dhirta oo kale waxay u baahan tahay neefti kaarboonka hayd sunlight-ka oo cadceediya iyo biyihii lagu waraabinayay iyo suitable soil ama carro ku fiican inta geedku haduu waayo duu dhimanaya waa noole geedku oo de noolaha marka qaybinaya xayawaan iyo dhir baa la kala yiraahdaa labadaas un baa noole la sheegaa waaya dadkan inta badan dhibaatooyinka anaga naga haysta dhirta markay aanu beerno hadda tusaale ahaan waxa meel baad meel goob waxbarasho ama meel maaragtay bulshada dan guud ugu fadhida
ayaad imanaysaa budget balaan baad u samaynaysaa dhir baad u beeraysaa kabacdina dhirtii markii aad u beertid hawshii u dhammaysid waxaad ku odhanaysaa waraabsada waxay ku weydiinayaan yaa noo waraabinaya micnaha bulshadii waxaa laga dhaadhiciyey in iyaga loo shaqeeyo aysan iyagu waxba meesha aysan gelin waxay u arkayaan dantan dhirtan aanu beerayna ama aanu wadno in anugu faa'iido gaara ay noogu jirto unugumana jirtee waa wax aanu maaragtay aanu aragnay dhibaato inay tahay waxyaabahani oo dadkii aanu uga digayno sidaa darteed waxaad arkaysaa goobo aad dhiraysay oo beri kamal markaad soo martay ama geedkii yara xumaaday ama qaadhay ama waraab la'aan haysato wax kalena ma haystaan biyo la'aan unbaa haysata sidaa darteed qofkan waxaa loo baahan yahay inuu geedka waraabsado oo uu maaragtay marka dhibaato badan ba xagga naga haysataa hadaan su'aashaadi ku soo noqdo dhibaato badan ayaa naga haysataa dhirtan maaragtay aysan dadku waraabinayn dadka qayb laakiin hadda waxaan u sameynay meel hadda markaanu beerano kale meel mu'asasada ama dhakhtar oo kale waxaan kula talinaa qof u samaysta idin waraabiyo oo aad mushaar ku siisaan way sameeyeen hadda dhakhtarka weyn oo kale waxaa jira dhirta aan u beernay in loo waraabiyo qof ay mushaar ku siiyaan marka wax lagu dayan karo waa tallaabo uu qaaday baa la odhan karaa fahiima iyo public hospitalka oo fahiima maamushay tallaabo ay qaaday inay qof maaragtay u qorshaysay waraabiyo dhirtii saas oo kale iskuulka Nugaal Secondary School iskuulaadka ay ka mid yihiin Ilays Muuse Yusuf intuba waxay u samaysteen dad waraabiya waxaana kula talinaa bulshada geedku manfac buu leeyahay geedka haddaadan waraabsan karin dee dhibaato ayuu maaragtay geedkan waa noole uu kaa dhimanayaa marka anagana waadna tacab khasaarisay adiguna waxba maadan kororsan marka saasan lay bulshada kula talinaya waayahay saan ogsoonahay dhulkani wuxuu ahaa dhul daaqsimeed xoolo ayaa ku nool sida deegaamada bariga lagu yaqaano imika waxaad moodaa dad qurba jooga dib u soo noqdeen dalka dhul badan oo ahaa dooxyo ayay xidhaan beeray ka dhigtaan xoolay geliyaan qaarkood beer ayay ka samaystaan qaarkoodna geel ayay ku xareeyaan halkaas caanaha ku soo maalaan aad bay u badan tahay arrintaasi maxaa saamayna maxaa dhibaataa maxaa faa'iido ku jirta kaymaha ama dhulka xooluhu daaqa jireen qolyaha qurba joogku inta xidhaan ay dhul beeraad ka dhigayaan bal labadaba markaad inoo eegto maxaa saameynaya keeni kartaa wallahi horta waa runta oo saameyn ba'an buu deegaanka ay ku keeneen seerayaashan cusub marka laga hadlo goboladeenan gobolka Sool awal hore uu ka ladnaa seerayaasha oo kumaysan badnayn hadda waxaad moodaa in dad qurba jooga iyo dad yow kaleba ay seerayaal samaysanayaan oo dhul ay iska xidhanayaan dhulkaas wax manfaca oo ay ku qabaani oo ay kaga faa'iideysanayaan ma jirto uu xidhnaanaya waxba ku beeri maayaan saa darteed xoolihii daaqi lahaana way ka xidheen dadkii kalena dhulkii bay ku cidhiidhiyeen waa waxyaabaha deegaanka dib u ridaya ayaa waxay ka mid tahay seerayaashan cusubi dib waxaaba suurtagal ah oo seerayaasha qayb la ogaadayba in dhulkan la xidhanayo ujeedada loo xidhanayo ay tahay in dhuxusha lagu gubo ama in dad dhuxul intii geeda lagu saaro hodhow lagu gubanayo waayahay wasaaradda deegaanka waxaan ogeyn inay waraysiga ka horeeyay idinla soo xidhiidhay gacan ay idin geysatay bal xiriirkiina wasaaradda deegaan ahaan iyo fariinta u direysaan maxay tahay halkan waxaan ka salaamayaa wasiirka deegaanka ee Soomaaliland Shukri Bendra oo runtii in badan la soo xidhiidhay wax badan iyo qorshayaal badan isla meel dhignay haddana waxaan ka rajeynaynaa inaan xiriirkiisa laba jibaarno sidii deegaanka loo ilaalin lahaa iyo sidii maartay looga qayb qaadan horumarka fariintan waxaan ka dirnaa deegaan cagaarsha ahaan in wixii qof walba oo maartay qayb ka qaadanaya dhirbeerista iyo hawsheeda nagala qayb qaato qof kasta oo geed ama wax kale fikir nagu biirina oo soo dhaweynaa wasaaradana waxaan ka codsanaa inay wixii maartay agaba ama wixii maartay nursery ama dhira inay naga caawiso aad iyo aad soo dhaweynaya wasiirka deegaanka runtii aad iyo aad nolol shaqeysay maxamed muxuu yahay qorshayaashiina idin yaala ka deegaan cagaarshahan haddii aynu soo ururino iyo ujeedooyinka iyo himilada hadda aad ku fogantihiin inaad qabataan waad mahadsan tahay haddaan soo koobo su-aashaas qorshayaasheedu hadda waa badan yihiin waana kuwa maaragtay aan u sameynay jadwal oo kala horhoreeya
waxyaabaha ugu muhiimsan ee noo qorshaysan waxaa weeye inaan horta wacyigelin iyo tababaro bixinno ku saabsan deegaanka oo waayo qofkii geedka ilaalimaayo daryeeli maayo ilaa hankiisa iyo maskaxdiisa la dhiso oo loo sheego geedka micnihiisa faa'iidadiisa wuxuu ku qabo iyo waxa laga rajaynayo mustaqbalka tababaradaas waxaanu jecelnahay in waxyaabaha hay'adaha ama donoriska ama wasaaraduhu ay qayb ka noqdaan oo ay nagala qayb qaataan yoolasheeda waxaa ka mid ah inaan dhirtii deegaankan lahaan jiray inaanu ku dhiirano inaan sii beerno waxyaabaha noo yaala waxaa ka mid ah tirtirista geedkan garawaaga ama cali garoobka dadka qayb u yaqaaniin inaanu isagana maaragtay deegaanka uu ku soo badanayaa oo hadda waxaad moodaa fidistiisa inay sii laba jibaarantayba oo xoolihii baaba fidinaya hadda xoolihii baa cunaya markaasay fidinayaanoo qaab hadda biological neefkii markuu iniintii dhulka ku daadinaya markaasuu sii fidaya marka inaanu isagana qorshaha noo yaala wuxuu weeye in isagana aanu maaragtay jarno oo hadda waxaan u samaynay habab cusub oo lagu jarayo geedkan qorshayaasha noo yaala waxa weeye inaan dhir beerista badino oo dhirta sii samayno iyo inaanu waxaan ku u sheegayaa wasaaradda deegaanka in ay sameeyaan maalin loo qorsheeyay ama sanadkii 2 casho oo dhir lagu beerayo sida hadda Itoobiya kale waan ognahay 300 milyan iyo ba hal mar la beero one day lagu beero marka waxaan rajaynaynaa in haddaynu awoodno 1 milyan inaanu hal maalin aanu goboladoo dhan aanu ku wada beeri karno inaanu qorshaha sameeyno 1 milyan oo geed inaan hal maalin aanu ku beerno marka kalaas caanood ahaan qorshaha noo yaala waxa weeye inaanu mar aanu sameeyno ilaa 1,000 geed inaan magaalada hal maalin ku beerno oo dadka intaan u qaybino hal maalin la diyaariyo oo godka la geliyo qorshayaasheedu badan yihiin baaqan u dirayaa wasaaradahuna wuxuu noqonayaa deegaan cagaarshe haddii uusan helin dad la shaqeeyay waxay noqonaysaa in wixii aanu qabanay ay iska yaraadaan anugu fikirkan iyo shaqadan ka harimayno laakiin muhiimadu waxa weeye in dadku ay nala shaqeeyaan oo qofka geedka loo beerayo bulshada qurba joogta kuwa deegaanka jooga ganacsatada wasaaradaha hay'adaha aan dawliga ahayn intuba ay la shaqeeyaan sababtoo ah wixii wada shaqeyntu waxay keenaysaa in wax badan ay qabtaan waxaan kaloo hadda aan ku darayaa aan sameynay dallad gobolka Sool oo dhan ah oo iyaguna maartay ururo badan oo ka shaqeeya dalladaasna wax badan bay qaban doontaa insha Allah intaas ku soo gabagabeynaya daawadayaal sida daawanayseen waraysigeeni aynu kaga hadlaynay himlada deegaan cagaarshe iyo suurtagelinta gudoomiyaha iyo salaabaan oo kamid mas'uuliyiinta sarsare deegaan cagaarshe runtii waxay hirgeliyeen urur aad iyo aad loogu diirsaday wax weyn ka qabtay gobolka Sool iyo deegaamada hoos yimaada waxa dhanka duubista iyo habeynta iyo diyaarintaba gacan weyn ka geystay suurtana geliyay Mawlid oo haradigeed aad u taqaaniin oo aad iyo aad uga mahad celinayo shaqadan wanaagsan ee uu qabtay aniga oo ah Cabdiqani Xasan Faarac iyo deegaan cagaarsho dhinacayga joogta intuba waxaanu idinku baraarujinaynaa inaad deegaanka ilaashataan bi'ada si weyn uga qayb qaadataan adduunkana aad la socontaan imtixaanka ka socda maanta inay hiigsigiisu yahay sidii loo nooleyn lahaa ciidda iyo dhulka aad qof walba degan tahay marka deegaanku waa kugu waajib iyo mas'uuliyad ku saaran muwaadin inaad dadkaaga iyo dhulkaaga aad badbaadiso waana fariinta ay deegaan cagaarshahan ii soo gudbiyeen ee adiga ku gudbinayo muwaadin si aad uga qayb qaadato bi'adaada waana muhiim inaad mar uun isku daydo geedaad beertay inaad hoos istaagto harsataa waa mid adiga xaq ilaahayna aad ajar ugu helayso umadiisna aad ugu helayso dhammaantiin waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyada ee been nimcada iyo naxariista alle meel kasta aad joogtaanba dushiina ha ahaadeen walillaahi alxamdi assalaamu calaykum